soo dhaweyn aan loo kala harin oo ay hormad u yihiin maamulka gobolka Kandegmada isimo nabadoono dhalinyaro haween ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo gawaari aad u tiro badan ayaa looga hortagay halka laga soo galo magaalada Boosaaso Beeldaaje Cabbaas Beeldaaje Cali Nuur Bunjaceyl oo kamida isimada Puntland isla markaana ka soo kicitimay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Beeldaajaha ayaa salaan soo dhaweyn la dhex qaaday dhammaan dadkii soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Master Ciro iyo ku-xigeenka duqa degmada Boosaaso Master Garoon ayaa ku soo dhaweeyay goobta Beeldaajaha waxa maanta farxad noo ah inaan ku soo dhaweyno Beeldaaje Cabbaas Cali Bunjaceyl magaalada Boosaaso caasimadda gobolka Bari waxaan leenahay Beeldaaje soo dhawow muddaad ka maqnay dalkaaga iyo dadkaaga Beeldaaje soo dhawaan ku leenahay aad iyo aad baa loogu qabaa talooyin wax ku ool ah waxaan rajaynaynaa inaad tahay dadka talooyin wax ku oolka dalkan ku soo dhaweynaya ku soo kordhinaya muddo badan baa naga maqnayd Beeldaaje soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa madaxdii dalka gobolka Bari iyo kuwa degmada isimadii odayaal dhaqameedkii nabadoonadii dumarkii dhalinyaradii dhammaan waxay halka u joogaan soo dhaweyntaada way Beeldaaje Cabbaas Beeldaaje Cali Nuur Bunjaceyl ayaa uga mahadceliyay dhammaan dadka soo dhaweeyay waxa aad ii farax galiyay yaani sida sharafta leh oo weyn aad ii soo dhaweyseen oo aad iga timaadeen masaaf danahiina aad u soo xigteen qarashna aad soo galeyseen taasi waxay ii tahay abaal iyo sharaf weyn aad noo gasheen annaga iyo beesha abaalkeedana waa idin haynaa ilaahay baa abaalkeena gudi kara jazaakumullahu khayra de wixii dambe insha Allah waa ka wada hadli doonaa kule was waraysan doonaa hadii meel cid baan joognaa ugu dambeyntiina Beeldaajaha ayaa loo galbiyay halka loogu talagalay deegaan ahaan oo ah hotel Juba ee magaalada tan Boosaaso Ahmad Sham Hon Cable TV Boosaaso